Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Abdiraxmaan. Halkaad ka daawanaysid waa Abno Official. Wadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Muuqaalkan waxaan kaga hadlayaa 5 caado ay tahay inaad raacdo si aad noloshaada aad uga dhigto mid dheellitiran oo aad guul kaga gaarto. 3 saacadood oo shaqo ah oo aan galgo' lahayn. Ma jiro isticmaalka baraha bulshada, ma jiro daawashada TV-ga, ma jiro isticmaalka telefoonada. Kaliya diirad buuxda waa inaad saartaa waxa aad qabanaysid, shaqo haddii ay tahay ama barasho cilmi haddii ay tahay. 2 goor hore kac oo jimicsi samee. Tani waxay kordhinaysaa heerka tamartaada waxayna dhisi doontaa joogteyn xagga noloshaada ah. 3 had iyo jeer u shaqee waqti dheeri ah si aad si adag wax aad ugu mir dhaliso oo samee naf hurid waqti gaaban oo ujeedooyinkaaga fog aad ku gaaraysid. Naftaada waxaad ka dhigaysaa mid aad sabar aad barto oo aad u dulqaadato. Laga yaabee markii aad hawl aad bilaawdid inaad caajisid oo istahadaniyo waxaan aruurta dhamaystiraysaa ama markaa wax akhris bilaawid oo kale oo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo aad wadid ay kugu soo dhacaan 100 fikir oo tashwiish ah oo aad haysid. Aruurta oo soo laabataa iska joojisaa masii wataa kadib dameer qaadaysid inaad iska joojisid oo aad aruurta bilaawi doontid. Aruurtii markii la gaarana isla meesha aad ku soo laaban doontid. Sidoo kale isla sidaas shaqada aad qabanaysid inaad marnaba aadan ka caajisin oo aad shaqadaada focus aad saartid oo diirada aad saartid oo aad isqabatid. 4 tababar samee 3 maalmood toddobaadkii si joogto ah. Jimicsigu wuxuu dhisaa inaad tahay qof haybadiisu muuqato, haybada muuqaalkiisa, haybada caqliyadiisa. Waxaa la dhahay aalmiitadu ay ka qayb qaadataa caqliga saliimka ah. Sidaas darteed xagga muuqaalka iyo xagga caqliga intaba gym-ku wuu ka saacidayaa. Haddii aadan samayn karin kaliya xitaa samee workout wax loo yaqaan ama guriga ku samee si aad jimicsi aad u sameysid oo dhidid uu kaaga imaado. 5 ku celcelinta mahadnaqa. U mahadnaq maalin kasta waxyaalaha aad hore ugu haysatay noloshaada. Ilaahay ugu mahadnaq waxyaalaha uu kugu manaystay. Waayo waxyaalahan adigu shalay maadan haysan haddii maanta aad heshay falillaahi alxamdu walillaahi shukru. Haddii aadan haysan shalayna oo maantana aadan haysanin labaduba alxamdulillaah Ilaahay ugu mahadnaq. Sidoo kale dadka ugu mahadnaq oo waxyaabaha ay kaa caawiyeen ugu mahadceli. Ha noqonin jazaar ha noqonin. Qofkii abaal ku gala abaalkiisa haddaadan u gudi karin xitaa kaliya haddii aad dahdid mahadsanid waxay kaa caawinaysaa inaad noqotid qof moral leh oo edeb leh oo fahmaya qofkani kale hawsha uu ku qabtay iyo sida ay kaaga caawisay inaad wax aad ka caawiso wax aad ka qabato hadafyadaada. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Wadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalkeena. Insha Allah.